بسم الله الرحمن الرحيم hadii ilaahay ogol yahay maanta waxaan wadaagi doonaa muuqaal kooban oo aan kaga waramayno lixda qodob ee ay tahay qofku inuu maalintii fuliyo ibn aadamku waxa uu ka kooban yahay ruux iyo jid iyo aqli iyo caadifad ama dareen lixda qodob ee uu ka kooban yahay waxay u kala mudan yihiin sida aynu sheegnay qofku wuxuu ka kooban yahay waa ruuxdiisu waxay u baahan tahay inuu kobciyo koriyo oo ku qoodiyo qoodka ay leedahay waajibka koobaad ee qofku sameeyo waa inuu maalintii tukado 5 waqti isagoo ku ilaalinaya salaada waqtigeeda laba qofku waa inuu kobciyaa aqligiisa oo uu ku kobciyaa akhris iyo inuu kordhisto aqoon ugu yaraan maalintii saacad barkeed qofku waa inuu jirkiisa dhisaa oo uu ku dadaalaa riyaadada ama tamriinka ama tababarka maalinlaha ee uu naftiisa siinayo isagoo ugu yaraan soconaya saacad barkeed qofku shaqada uu hayo waa mas'uuliyada la kala xisaabtamayo waa inuu u fuliyaa sida ugu daacadnimada badan leh isagoo og in Ilaahay kula xisaabtamayo waa inuu carabkiisa ilaashadaa qalbigiisana ka dhowraa inuu xumo iyo xiqdi ugu qabto dadka islaamka ee kale waa inuu noqdo qof qalbigiisu xalan yahay nabiguna wuxuu alayhi salaatu wasalaam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi aw min yadihi wa lisanihi qofku waa inuu noqdo qof carabkiisa oraahdiisa haday xan noqoto haday been noqoto haday been abuur noqoto haday cayn noqoto iyo meel ka dhac kalaba waa in carabkaagu uu ka dabran yahay xumaan oo dhan sababtoo ah dadku naarta waxay u galaan waxay ku goostaan carabka sidoo kale waa in qofka adinkiisa iyo gacantiisaba laga nabad galaa inuu cid ku waxyeeleeyo intaasina ku koobaynaa muuqaalkeena yar ee kooban intaanu mid labaad isugu imanayna waxaan iskaga tageynaa nooli kulantee iyo nabadey